Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Charlie Chaplin waa magaca markay maqlaan malaayiin qof dunida daafaheeda uu ku soo dhaco shactaro comedy qosol. Ma ogtahay in Charlie noloshiisii yaraantiisii uu ku soo noolaa fakhri, markii dambe uu weynaadana uu iska dhigay xiddig caalami ah ilaa uu ka noqdo ninkaas ay cid walba wada taqaano dunida daafaheeda. Waa mawduuceena maanta. Haddii ay tahay markii ugu horreysay channelka subscribe saar si ay kusoo gaaraan muuqaalada cusub, gambaleelkana furo si laguu soo ogeysiiyo markaan soo dhigno muuqaalo. Charlie Bansar Chaplin waxa uu ku dhashay magaalada London 16 Abriil sanadkii 1889. Charlie waxaa iska dhalay aabe ahaa fanaan masraxda yaryar ka heesa, markii dambena iska noqday khamriye cab. Hooyadiisna waxay ahayd sidoo kale masraxyada dadka wax ka jiljila. Aabihiis iyo hooyadiis waxay kala tageen yaraantii ay kala tageen. Markii uu 13 sano jirana aabihiis khamriye cabnimo ayuu u geeriyooday. Hooyadiis ayaa qaaday noloshooda kafaalo qaaday isaga iyo walaalkiis ka weyn. Hooyadood laakiin waxaa ku dhacay inay weyso shaqadeedii markii uu ahaa 5 jir, sababtoo ahna codka ayaa dhib ka gaaray, hadalka ayaa duqda dhib ku noqday. Sidaas darteed shaqadeedii waa weysay. Isaga iyo walaalkiis iyagoo 5 sano jira waxay ku qasbanaadeen inay ka shaqeeyaan kobotirtirida ama caseeyanimo ama baalash la sida u taqaano. Charlie wuxuu ka shaqeey jiray caseeyanimo. Markii uu 9 sano gaaray, hooyadiisna waaba waalato madaxay ka jiratay, kadibna waxaa la geeyay meelaha dadka madaxa ka jiran lagu daaweeyay. Charlie iyo walaalkiisna waxaa la geeyay meel lagu xanaaneeyo ilmaha agoonta ah. Halkaas ayuu ku noolaa, wuxuuna jiri jiray masraxyada yaryar. Markii hore wuxuu ku soo caan baxay hooyadiis markii ay ka jiratay codka, iyada oo bandhig oo ay ku jirto. Charlie ayaa lagu bedelay booskiisa. Charlie ayaa hooyadiis booskeedii istaagay, kadibna waxaa lala yaabay sida uu codka hooyadiis u keenay. Hooyadiis ayuu codkeedii sideeda u keenay, masraxii ayuuna sidaas ku dhammaystiray. Charlie markaas wuxuu jiray 5 sano oo keliya. Kadib wuxuu ku biiray masraxyada yaryar ayuu wax ka jiljili jiray ilaa laga soo gaaro 1913. Xilligaas oo ahaa 14 jir, wuxuuna imaaday Los Angeles. Isaga iyo kooxdii uu wax la jiljili jiray waxay imaadeen Los Angeles. Los Angeles waxaa ku arkay dadkii filmaan sameyn jiray xilligaas Hollywoodka, waxaana la saxiixdeen heshiis. Shirkad ka mid ah shirkadahaas ayaa heshiis la saxiixatay inuu filmaanta u jiro. Charlie sanadkaas wuxuu sameeyay dhowr filin, laakiin ma aysan ahayn sanadkiisii ugu fiicneed. Sanadkii 1914 wuxuu ahaa sanadkii ugu fiicnaa Charlie Chaplin, uuna soo ifbaxay xidignimadiisa markii ay soo iftay oo caalami noqday. Wuxuu sameeyay 35 filin oo intooda badan aamusan, oo filmaan aan la hadlayn, laakiin shactaro ah, dhaqdhaqaaq shactaro ah oo wuxuu ku caan baxay Charlie Chaplin. Sanadkaasna Charlie Chaplin wuxuu sameeyay ama wuxuu abuurtay shakhsiyadda uu caanka ku ahaa ay ah qof mutasharrid ah, qof bannaan joog ah oo guri iyo dad iyo waxba lahayn, oo wata surwaal weyn iyo bahal suud kor dhuuqsan iyo koofi iyo ul yar wata. Waa sanadkii uu sameeyay. Kadib ilaa laga soo gaaray 1930, Charlie Chaplin xidignimadiisa kor ayuu socotay. Wuxuuna sameeyay filmaan badan oo shactaro ah, intooda badanna u badan filmaan aamusan. 30kii wixii ka dambeeyay waxay ahayd xilligii ay bilaabatay filmaanta ama ay soo caan baxeen filmaanta hadlaya. Charlie-na waxaa laga rabay oo la yiri sameey filmaan hadlaya. Yacni filmaantii aamusnaa waa namad hore ama waa qaabkii hore waa laga tegay, filmaan hadlaya sameey. Charlie isagoo diidan oo qaabkii hore raba, laakiin waa ku khasbanaa. Charlie Chaplin 1936 wuxuu sameeyay filimkii Modern Times oo uu ku dhaliilayay ilbaxnimadii la gaaray, farsamooyinka caalamiga, farsamooyinkii cusbaa ee ilbaxnimada ah oo ku dhaliilayay. Xilligaas waxaa jiray nin la yiraahdo J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover wuxuu ahaa madaxa FBI-da Mareykanka. J. Edgar Hoover wuxuu necbaa Charlie Chaplin nacayb indhala-aan, ma aqaan wuxuu ku necbaa, laakiin Charlie aad iyo aad u necbaa. Filimkii Modern Times markuu ka qayb qaatay Charlie, J. Edgar Hoover wuxuu bilaabay inuu dhaliil ku raadiyo. Sidoo kale Charlie 40 sano oo Mareykanka joogay, dhalashada Mareykanka ma qaadan, waa uu diiday inuu qaato. J. Edgar Hoover marka wuxuu ku raadinayay dhaliil yar ama qalad yar oo galo si uu wadanka uga ceeriyo.
ilaa laga soo gaaray 1940 markii uu Charlie shelay filimkii The Great Dictator ama Dictatorkii weynaa. Filimkaas oo uu ku matalayay Hitler qaab laakiin shactare ah. 1952 Charlie wuxuu Ingiriiska u aaday fasax iyo inuu halkaas ku soo bandhigo filim uu xilligaas sameeyay. Laakiin waxaa soo gaartay markii uu kasoo tagay Mareykanka warqad ka timid FBI-da ama Mareykanka, taas oo sheegaysa in Charlie ay ka dhacday ama laga kansalay warqadda soo gelitaanka Mareykanka, warqadda ogolaanshaha Mareykanka ku soo laabashadeeda, lagana buriyay Mareykanka. Charlie Chaplin kuma uu soo laaban markaas kadib kuma soo laaban Mareykanka ilaa 1972 xilligaas uu qaadanayay Oscar sharafeed ay siiyeen qolada Hollywoodku ay siinayeen Charlie Chaplin. Charlie wuxuu iska degay Switzerland intii noloshiisa ka dhimaneedna wuxuu ku dhamaystay Switzerland. Charlie Chaplin wuxuu geeriyooday 25 December 1977 isagoo jira 88 sano, wuxuuna ku geeriyooday Switzerland waxaana lagu aasay isla Switzerland. Charlie Chaplin wuxuu ku guuleystay noloshiisii 4 jaa-iso oo Oscar ah, 1 jaa-iso sharafeed oo Oscar ah iyo 3 kale oo caadi ah. Charlie Chaplin noloshiisii wuxuu guursaday 4 dumar ah, wuxuuna dhalay ciyaal 11 ah. Intaas ayuu ku egyahay muuqaalkeeni maanta. Haddii ay tahay markii ugu horreysay channelka subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub, gambaleelkana furo si ay lagu soo ogeysiiyo muuqaalada markaan soo dhigno. Like-ta iyo share-tana hanaga baqiilin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.